السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalkeena Daryeel Media. maanta waxaan ka hadli doonaa 3 qodob oo ka dhigi karo qof ay dadku ixtiraamaan. 1. marnaba ha ballan qaadin wax aadan oofin karayn. waa muhiim mararka qaar inaad naftaada bartaa sida loo yiraahdo maya ama ma awoodo, waayo waxa aad dareemayso inaadan oofin karayn waxa haboon inaad dhahdid maya ma awoodo. taas beddelkeeda waa inaad qofka ku dhahdaa maya ma awoodo waxaas. waxay kaa badbaadin kartaa inaysan sharaftaada wax yeeloobin oo waxa ay ka dhigaysaa qof lagu kalsoonaan karo haddii uu wax balan qaado. 2. dulqaad u lahow haddii lagu soo jeediyo dhaleecayn. ujeedadu waxa uu yahay ha noqon qof jecel isaga keligii inuu talada bixiyo, oo haddii ay dhacdo in isaga la saxo aan talada dadka ku dhagaysan. waayo dadku markay arkaan inaad tixgelinayso aragtidooda, taasi waxa ay keenaysaa inay adigana ku qadariyaan oo ay ku tixgeliyaan fikirkaaga. 3. xakamee waxa aad sheegayso. ugu horreyn xakamee waxa aad ku hadlayso oo ha u isticmaalin ereyada xunxun, waayo taas waxa ay sabab u noqon kartaa dadka inay ku fududaystaan. teeda kale qofku waxa uu doono sheego, wax xumeeyo ma waayo. midda labaad, haddii ay dhacdo in laga careysiiyo ama laga xanaajiyo, isku day inaadan luminin deganaanshahaaga oo aadan hadalka kor u qaadin, balse taa beddelkeeda waa inaad diiradda saartaa sidaad u hagaajin lahayd waxa aad ka doodayso.